بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتي لبانتين bulshada Soomaaliyeed meel wada joogtaan afka Swedish-ka oo af Soomaaliya waxa weeyaan casharkani waxa casharkii saddexaad sidii markii hore soo sheegnay ugu sheegnay casharkii koobaad iyo labaadba inuu ku saabsan yahay ama u gaar yahay dadka da'da weyn waxaanay u fududeynaysaa qofku inuu si degdeg ah u barto afka oo si fudud u barto afka sababtuna waxa weeyaan dadka da'da weyn badana waxbarasho dad baan jirin waxbarasho soo qaadan ama dadka waxbarasho soo qaata ama gramatiga aan soo dhigan oo kale wax loo bixiyo naxwiga afka Swedish-ku waa miftaaxa bulshada dadku dhex gali lahaa waxaanay sabab tahay waxa weeyaan qofku ka yar maarmi karo inuu qof kale u tolkayo ama xilqaamo ama kalsooni qaato markuu yara barto wax inuu wadanaad ka sii gudbo wadanaad sii barto wax badan qofku markuu afka barto wuxuu garanayaa xuquuqdiisa waajibaadkiisa xaq uu leeyahay xaq asaga lagu leeyahay waxa dhib ka iman kara waxa dhibaato lahayn caruurtiisu qofka caruurtiisu iskuul tagto qaabka wuxuu dhigtaa qaabka wuxuu socdo afku waa miftaax bulshada shaqada waxyaalo badan markaan wax bilaabana casharkii saddexaad qaybtiisa koobaad biidnillaahi kariim sida markii horeba uu sheegnay waxa wuxuu gaar u yahay dadka da'da weyn oo si dhaqsaa u baran karaan afka casharada u sahli doona biidnillaahi kariim casharka saddexaad qaybtiisa koobaad förlåt mig ursäkta mig jag ber om ursäkta ku soo celiyo förlåt mig förlåt mig ursäkta mig jag ber om ursäkta ta koobaad förlåt mig raalli ahow förlåt mig يعفي رالي أهو förlåt mig يعفي ursäkta raalli noqo ursäkta mig iga raalli noqo jag ber om ursäkta waan ka cudur daaranaya malaada ku soo celiyo raalli ahow förlåt mig يعفي ursäkta raalli noqo ursäkta mig iga raalli noqo jag ber om ursäkta waan ka cudur daaranaya qaybta labaad gott nytt år sanad wanaagsan gratis hambalyo gratulera hambalyo tahaniyad trevlig helg fasax wanaagsan ama isbuuc dhamaad wacan trevlig resa safar wanaagsan gott nytt år sanad wanaagsan gratis hambalyo gratulera waan ku hambalyeynaya ama tahaniyad weeyaan trevlig helg fasax wanaagsan ama isbuuc dhamaad wacan trevlig resa safar wanaagsan gratis badana dadku waxay lahaan markay dukaanka tageen aden gratis alerden waxyaalahaas waxa jira gratis bilaa lacag nacti free ba okay ajilta taa wax loo isticmaali karaa hambalyo loo isticmaali karaa marka qofka hambalyeynaysa iskuulkii dhameeyay gratulera balonisa ama qof markuu sanad daadiisa markay sanad ku biirto fodrse dog marka taa kale wax gratis stud gratis balonaya qofka way isku yara dhowdahay gratulera iyo gratis man laakiin laba mid walba qaab baa loogu dhigaa ama loogu qofka loo dhahaa marka gratis badana qofku markuu wax helay hadiyad helay ama wax helay hambalyo magarata gratulerana badana waxa weeyaan qofku markuu wax qalin jabiyo ama kuush ka baxay ama shahaad u qaatay imika waxuu gudbanaa casharka saddexaad qaybtiisa afraad hur mår du sidaad tahay bro tack waan fiicanahay mahadsanid jag mår bra tack ama waxaan qortaa jag mår bra waan wacanahay mahadsanid och du adiguna du själv adiguna marada ku soo celiyo eryaashan waxa weeyaan badan qofku markuu isticmaalayo waxay la kulanka kale qofka la kulmaysid saa tahay la isweydiinayo marka xaalad sida tahay hur mår du sida tahay bro qofku xulan karaa ama bro tack waan fiicanahay mahadsanid yo mår bra waan wacanahay mahadsanid waan ku celin doonta qofka markaa ku kelmadda hur mår du waxaa qoranaysaa og du adiguna ama
du khalf adiguna marka badana qofku ogdu baa soo yaraadu soo gaabso saan qofku uga lumin ogdu balance adna marka qofku weydiyo ku tahay aanu ma fiicanahay adna de xaaladda ka war imikana waxa soo qaadanayna sawiro ku saabsan la kulanka qofku marka qof la kulmo laamiga ama suuqa wada halku yahay marka badana cilmi sida cilmiyan loo sheegay waxa weeyaan qofku hadduu sawir ku xiro eriga laftiisa uu xusuusan doonaa si xusuustu u fududaato qofka badana waa inuu eri ku xiro sawirkaasaa mar walba soo saaraya waa sila sahlan qofku wax u qaybi karo ama u xusuusan karo iminka laba qof baa kulmaya hey waa salaante hey oo ku celisay hey salaam who are that sidaa tahay bara bro tag waan fiicanahay mahadsanid haydo maca salaama haydo maca salaamin faashugud kusoo dhowow ama hoo tag mahadsanid casharkii saddexaad faqraddiisii afraad intaasay ahayd kolley asana in sheega weeyaan qofkuis inuu isxilqaamo barashadu afku way iman kartaa maalintiiba qofka hadduu 10 eri barto ama u qaybo wuu soo xusuusan karaa degdeg buu markaa afku baran karaa maalin walba 10 ku dhufo 30 karaa ku dhufo 12 bilood 10 ku dhufo 30 300 ku dhufo 12 inta noqon karto waa ogtiin assalaamu calaykum waraxmatullaah wa aniga rashiid jaamaca aad iyo aad baan salaamay